galmudug dowlad ma leh galmudug dowlad ma leh galmudug dowlad ma leh galmudug dowlad ma leh 11 beelood saaka dagaal waay waxaana sababay dowlad la'aan farmaajo uu soo tuuray Axmed Kaariye qorqor waxaan uu soo tuuray farmaajo faa'iido lagama gaarin dib badan laga gaaray madaxweyne lagama raacin wax nooma uusan qaban dalka iyo dadka iyo iimaanka midna wax nooga shabaab habeenkii waxa looga soo tuuriyaa oo ka soo tuuriyaa Dhuusamareeb habeenkii la arkaba lagama hoydo hobeeyalkiisa habeenkii la arkaba dadku dilaa Dhuusamareeb ayaguna waa isku dilaan waa magaalo madaxda 9 beelood oo galmudug ayaguna waa isku dilaan oo dadweynaha isku dilaa xaafiiska hortiisa al isku dilay meesha oo isagu degan yahay oo madaxtooyo lagu magacaabo waarsha ilinkeeda ameedkii la dhigay waa maqasha Soomaa qorqor waana lumiyay waxba uu naga xaleeyay dawlad la'aanuna dhigay dantanadi waa lunshay wax faa'iido kama aanan gaarin kaabeenka wuxuu ku galay inuu jidka dhisaa ciidkuma rogin waa kuwaas doqowshuhu baradhada ku dhaxgadaa asagoo bacaada amniga iyo arrimaha bulshada ku kashafmay oo ku fashalmay fashalkaas inuu ku galin meel loo saaray waa iyo 10 beelood oo galmudug madluunka iyo magacaba aan ku matala galmudug wax ka jira oo madaxdoodii iyo maamulkoodiiba ay habsan ku yihiin ayaguna u dhinteen una baaba'een aan horta iyo waxaan ka warrami doonaa waxaan ka hormari doonaa islaamka ummatul maxamedka oo ilaahay wada dhaliyay oo dariska oo 11 beelood oo galmuduga oo dagaalku qowda lagu haayo oo wiilashu urdanka ah la leynayo waxaan codsanayaa nabadeeyaan leeyahay inay gartaan dagaal inuu qasaare yahay nabadu faa'iido tahay dhiig islaan yihiin waxa la baxaa waxa tan laga gaaraa aan la arag ku hadii la dilo ku kala asna la dilaa saas in la fahmo oo ama culumaa diinka ama codkarka ama caaqilaantu inay u aragto sidaas inay si sax tahay oo la qaato nabadgelyada oo la qaato heshiiska oo la qaato wax afgaradka laba nimo habaryar iyo ilmaabtiyo ilmeeda laba nimo ilma adeera laba nimo ilma awoowa Soomaalida 11 beelooda ay u sunan yihiin qolo meel gooniya laga keenay male marka waa dagaal ilaahay mahal ahliyo oo shaydaan keenay jooga oo dawlad la'aan u sabab leh dawlad la'aan u sababa galmudug dawlad ma leh galmudug dawlad ma leh galmudug dawlad ma leh galmudug dawlad ma leh ayadoon lahaynan la isdili jirin ayadoo ummado kale joogaan ayagu hadda faraha gelinayeen ama loo xoog sheeganayay nabadgelyo ka jirtay oo dhig lagu daadi jirin oo dadka jahliga oo la rabin naqaas loola diriri jiray ayaguna ay nabad ahaa jireen waxaan doonayaa horta inaan afgaratiin dadkiina dadka u dhalay dirira inaan dawladu in kala dhaceyn ama aysan wax ku kala macnayn ama aysan in heshiisiyeyn inaad garatiin horta loo baahan intaas dadka walaalaheeya oo dagaala oo doorka iska dila oo bari ninkii meel ka bixi lahay ama nin si dhihi lahay ama cad u kaalmay lahay meel la soo dhigaa galabta baldhimay la leeyahay inay fahanto intaas waxaan ka codsanayaa dadka 11 beelooda oo saaka wax laba aqib ka dhaxaydo iyo laba isdamoonaysa aan la arag 11 beelood saaka dagaal waay waxaana sababay dawlad la'aan nin la soo magacaabay oo nin aan haatan saakay ilaahna ka baqayn islaamna aan ka baqayn oo cadawa ninu oo nagu soo tuuray
oo wixii uu nagu la soo tuuray annagana nagu dhaxaya oo nagu dhex sameeyay aan rabnaa farmaajo nagu soo tuuray Axmed Kaariye Qorqor waxa nagu soo tuuray farmaajo faa'iido lagama gaarin dib badan laga gaaray madaxweyne lagama raacin wax nooma uusan qaban dalka iyo dadka iyo iimaanka midna wax nooga masaakiin uma kaalmayn sid uma kaalmayn oo ma dhisin qola diriire ma nabdayn qola diriire iyo dagaal ku cadaadso nabad kama dhigin waa maqasho soo maahan dagaalka shabaab habeenkii waxaa looga soo tuuriyeeyaa ka soo tuuriyeeyaa Dhuusamareeb habeenkii la arkaba lagama hoydo hobeeyalkiisa habeenkii la arkaba dadku dilaa Dhuusamareeb ayaguna waa isku dilaan waa magaalo madaxda sagaalka beelood oo galmudug ayaguna waa isku dilaan oo dadweynaha isku dilaa xaafiiska hortiisa al isku dilay meesha uu isagu degan yahay oo madaxtooyo lagu magacaabo waarsha ilinkeeda ameedkii la dhigay waa maqasho Soomaa wax adduunyada la arko la maqlay wax adduunyada la sugaayay nama ahayn waa maqasho Soomaa Qorqor waa la lumiyay waxba uu naga haleeyay dawlad la'aanuna dhigay dantanadi waa lunshay wax faa'iido kama aanan gaarin kaabeenka wuxuu ku galay inuu jidka dhisaa cid kuma rogin waa kuwaas doqowshuhu baradhada ku dhex gadaa asagoo bacaada oo dhagaxii kowtigaas soo ahay iyo dhagaxii la iska bixiyay banaan laga dhigtay la iska fadhiyo waa maqasho Soomaa dalkan dawlad ka ahana waaleeyay dalkan wax ka qaadaha waaleeyay Qorqor hana la ka wareejiyo waxaan madaxweynaha Soomaaliya oo federaalka waxaan ka codsanaynaa inuu Qorqor naga wareejiyo Qorqor waqtigiisa waa dhamaaday calqalata ma aanan galin waa u sugnay waxa qabalahay bal hal arkaa la yiri si fiican loo dhageystay si fiicanna waa loo dhowreeyay waxba waa qaba waay aqal kuma qaba weyn gorba ujeeda kale u leeyahay waxaad aragtay kaaga luma waxa isdileen oo sir labada isu xigta haday isku dileen xafiiska hortiisa kala cilmaa Qorqor horta ninkaas uu noqday waxaan codsanaynaa oo fadlan isla caalamkana u sheegaynaa wax garadka Soomaaliyeedna aan u sheegaynaa wax garadka galmudugna aan u sheegaynaa dawladda federaalkana aan u sheegaynaa Qorqor in la ka bedelaa Qorqor inuu noo joogin sababta aad leedahay sheeg oo uga cabaraynaa oo leenahay sidaas uu yahay maxuu yahay Soomaa wuxuu yahay amniga iyo arrimaha bulshada ku kashafmay oo ku fashalkaas inuu ku galin meel loo saaray waa ka iyo 10 beelood oo galmudug madluunka iyo magacaba aan ku matala hadday hadlaayaan mar walba hadlaayaan inay ila qabaan hadday hadlaayaan shirjara iday ka hadlaayaan waa ay warameen hadda ka hore ay ka warameen hadda kadib ay ka waramayaan ninkaas in laga wareejiyo galmudug wax caafimaad oo galmudug ugu horeeyay waxa lagu saleeyaa amniga iyo arrimaha bulshada inuu san waxba la leeyahay ka ahayn lagu saleeyaa waxaan u dirayaa inuu Axmed Cabdi Kaariye waa dhamaystay asagu nagu kor celiya 2 bilood waa dhamaystay haddana wixii u dhiman cawa haday ku bilaay ay jimcaha haday u gaari anaga kor wareejiyo banaanka ku dhalanaga qaado waxaan intaas ku daraahon ka codsanaa nin la soo tuuray annaga nama deeqo nin la soo tuuray nama deeqo niman iska naaqishnay oo inuu nadeeqa aanu maleynayna oo 12 beelood iska fiirido aan madaxweyne ka dhiganayna oo rabnaa madaxweyne la'aan malihin ninkaas aan Xasan Sheekh inuu noo madax baneeyo oo inta kalena yiraahdaa durkina ka cabkaysta aan doonaynaa waxa imaan kara dalka hadeer dagaalka ka jira dadku uu og yahay qof dhagaha ka maqan lama arko waa suuqii la arkaba 2 qola isku siyaada balan habeen hore ahayd
iyo habeen ka horeeyay xalana waxay caabud waaqiya dhabad habeenka ka horeeyana waxay xaraale way maqashay bari hadii la aadam waa taqaaniin dagaal siyaada oo ahliya oo wax magac dawladeed leh iyo magac shacab wax leh aan midna cafihayn aaba imaana se wax kala cilaam ma lehe dagaalkaas waxaan ka cabaraynaa waxa waaye inaan ummaddu isdilin oo ummadda wixii xaquuqo ay leedahay aysan iska dhicin oo qof shacab ma dhici kartee waxay leeyihiin kala qaateen waaye intaas waaye